waxa sharaf weyn noo ah maanta booqasho rasmi ah inuu noogu yimi wasiirka horumarinta caalamiga ee dawladda UK Andrew Mitchell iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo halka kanoon kulan kula yeelanay runtiina kulankaas si fiican ayaan isugu afgaranay arrimo dhowrana way isla soo qaadnay ha ahaato arrimo khuseeya dawladda Puntland deeqaha ay dawladda Ingiriisku siinayso ama burcadbadeeda wixii laga qabanayo ama nabadgelyada guud wixii ma taqaanaayay wax badan baanu iska nidhi waxaanu kaloo isla soo qaadnay shirka London lagu qaban doono bisha soo socota taasoo la filayo inuu noqdo kii soo gabagabayn lahaa ama soo gunaanadi lahaa dhibaatadii Soomaaliyeed. I'm delighted to be here on the first visit by a British minister to Puntland, I think ever. I'm here to see for myself on the ground what is happening in Puntland and to have a better understanding ahead of the London conference on Somalia, which takes place on the 23rd of February. I've had an excellent meeting with your Vice President. We discussed how to tackle piracy. We discussed the importance of the roadmap in the run-up to the London conference. And we also discussed the British programme of support for Puntland, in particular in helping to build livelihoods, in building a prison, in supporting in the past education, particularly through UNICEF, and also in supporting healthcare, a particular priority for Puntland and for Britain. But I'm now going to the fish market to see how the friendship with Britain is contributing to livelihoods and to people's jobs, and I'm very much looking forward to the rest of my day here in Puntland. And thank you very much to His Excellency for his very warm welcome. waxaan ku faraxsanahay biir wasiirku inaan maanta noqdo wasiirkii u horeeyay dawladda Ingiriiska ka socda oo yimaada Puntland waxaan la qaatay wada hadal maaragtay aad u fiican madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo aan ku wada hadalay mashaariicda ay maaragtay dawladda Ingiriisku ka fulinayso wadanka Puntland iyo maxaan ku raadaa shirka London oo lagu sameyn doono wada tashi dawladda maaragtay ummadda Soomaaliyeed lagu sameynayo waxaan rajaynayaa hadda inaan tagno maxaan ku raaddaa suuqa kalluunka oo lagu sameeyay lacag ay bixisay dawladda Ingiriisku ay lagu sameeyay waxaan rajaynayaa maaragtay inay noqoto boqoshadaan mid keenta ama maxaan ku raaddaa boqoshooyin badan oo kale ku xigaan waxaanu dawladda kala hadalay si loola dagaalami lahaa burcadbeeda iyo maaragtay waxyaalaha kale amniga khalkhalgaliya wax walbana waa isku afgaranay roadmapka waxaa looga hadlayaa shirka London buu yiri maaragtay. Okay. Deegaan barwaaqiyo dugsi nabadi taalo qalbigu uu ku tiirsado Puntland waa dalkaygii dadkuna waa dadkaygii waa deegaan barwaaqiyo dugsi nabadi taalo qalbigu uu ku tiirsado waa dawlad calanoo durdurada xareediyo dahabku ka buuxo daymadu ka bogan karin dahabku ka buuxo daymadu ka bogan karin waa dawlad calanoo durdurada xareediyo dahabku ka buuxo daymadu ka bogan karin dahabku ka buuxo daymadu ka bogan karin dalxiiska loo tago waxaadii garoowiyo badhanka caladeediyo deganay bosaasiyo halsan sooliyahaw
dalxiis ka loo tago duxadiga rawiyo badhada caladeediyo deganay bosaasiyo dalsan sooliyahaw dalsan sooliyahaw Yeah.